الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داود الميل كستوات جوجتان بهالكن iyo telefishinka caalamiga hon cable TV barnaamijkeeni qanci dadkaaga ayaynu toddobaadkan iskugu nimid insha Allah taala barnaamijka labaadna dhamaadka bisha ayaynu iskugu iman doonaa bishiiban aanu qabana laba mar ujeedada barnaamijkeena caawaya waxay tahay in arrimaha doorashooyinka ee dalka ka socda ay bulshaduna xog ka ogaato gudida doorashooyinka heer qaranna ay ka warbixiyaan oo ay ummadda la socodsiiyaan halka ay marayso xaaladda gacanta ay ku hayaan ee doorashada iyo waqtiga loo dareeri doono kaar qaybinta iyo dhaliilaha iyo wanaagga jira labadaba in la isku daro insha Allah. marka barnaamijkeenu waxaynu halka u fadhinaa waa taas ujeedada barnaamijkeenu waxa weeyaan waa xogta iyo nuxurka iyo waxaad idinku ka dareen celinaysaan ee aad ka qabtaan baahi baan ururinay bulshada la dhex marnay iyo waxyaabaha jira cilmi baaris kooban oo barnaamijka la sameeyo ka hor intaan la duubin Soomaaliland waxaa la qabanayaa doorashada 13 November 2017 doorashada madaxtinimada oo tii saddexaad ee dadweynaha codkooda ay dhiibtaan ilaa markay Soomaaliland ku dhawaaqday madaxbannaanida ee ka goosatay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990 waxaa tartamaya saddex musharax oo ka tartamaya saddex xisbi kulmiye wadan iyo cid waana doorashadii ugu adkay taariikhda Soomaaliland sida ay saadaalinayaan dadka oo darasa ama ka faalooda arrimaha doorashooyinka Soomaaliland iyadoo xisbiyaduna ay bilaabeen olole dahsoon oo ka socda gobolada iyo degmooyinka ololahaasi ayaa fasax looga haysan guddiga doorashooyinka mana jiraan tallaabooyin adag oo laga qaaday ilaa imika 800,000 oo qof ayay isdiiwaangeliyay inay codkooda ay ka dhiibtaan 18 degmo doorasho oo ku yaala Soomaaliland barnaamijyada siyaasadda ay doonayaan doorashooyinka ku galaan xisbiyadu ay soo bandhigeen laakiin waxay xoogga saarayaan degmooyinkaasi oo ay keenaan kala qaybsanaan xoog leh si aan hore loo arag doorashadan waxa walaac ka qaba dad badan oo aaminsan in haddii aan si wanaagsan loo maamulin ay keeni karto xasilooni darri deeqbixiyaasha iyo ururada dimuqraadiyadda taageera ayaa isha ku haya sida loo maamulayo doorashada dhageystayaasha ama ka qaybgalayaasha waxay su'aalo weydiin doonaan dadka martida ku ah barnaamijka annaguna waxaanu su'aalo idiin soo weydiin doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasha Facebook iyo Twitter ku su'aalaha ay naga soo weydiiyeen aad baad mahadsantiin waa cilmi baaris kooban ama daraasad kooban oo laga soo diyaariyay doorashada Soomaaliland iyo si arkaan oo xog ururintaasi ay soo diyaariyeen baahda hon cable TV barnaamijku waxay noogu martiyo kaltuun Sheekh Xasan waa komishaneerad Cabdiqaadir Iimaan waa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Saciid Cali Muuse waxa weeyaan afhayeenka guddiga doorashooyinka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ku soo dhaweynaya bal inuu warbixin kooban naga siiyo doorashada iyo halkay wax u marayaan ilaa imika wad mahadsantahay ku soo dhawo gudoomiye marka hore Ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala inoo suuro galiyay maratoonkii dheeraayeen soo marnay ee ahaa diiwaangelin wadankoo dhan ka qabsantay kaar qaybin iyaduna la mid ahay taas iyo imikoo aynu kaabiga saaranahay inay doorashadii inoo dhacdo waxaan halkan uga mahadnaqayaa bahda hon cable TV ee inoo soo abaabulay madashan quruxda badan ee aad ku qancinayno dadkayaga doorashadu ma dhacaysaa xor iyo xalaal ma noqonaysaa ma qaban kartaan iyo su'aalo kale oo fara badan oo aad isweydiisaan waxaan halkan iyagana uga mahadnaqayaa dhalintan iyo hor fadhida habliyeynamaba leh ee iyaguna u diyaara inayna dhegaystaan warbixinta komishanka ay qaataan wixii su'aale ay qabaanna aanu diyaar u nahay inaanu ka shaafino ama aanu ka bogsiino bismillah komishanka doorashooyinka qaranku waa hay'adda Soomaaliland u qaabilsan inay hagto wax allaala wixii ku saabsan doorasho hadday tahay diiwaangelin hadday tahay shuruucda lagu hagayo diiwaangelinta hadday tahay kaar qaybin ama kaar la siinayo muwaadiniinta gaadhay da'da inay wax doortaan lana doorto oo ah inaka sharciyan inoo qoran da'da 16 maalinta doorashadu ay qabsoomayso komishanku wuxuu yahay hay'ad madax bannaan ka madax bannaan dhammaan hay'adaha dawliga ah ka madax bannaan wax alla wixii influence ee kaga imanaya ama xisbiyo ama dawlad ama shicibba waa hay'ad
u qaabilsan qarankan inay ku hagto inay doorasho qabato farsamo ahaan inay qabsoonto doorashadu waqtiga loogu talagalay. Commissionkan idin hor fadhiya wuxuu ka kooban yahay 7 xubnood. 3 xubnood caawa way idin hor fadhiyaan. 7 xubnood waa commissionkii afraad ee ina soo mara marka laga soo bilaabo commissionkii ugu horeeyay 2001 ee uu hogaaminayay Cadami, wasiir Cadami. aan xafiiskan waxaanu la wareegnay ama aanu xilkiisa qabanay 8 December 2014 markii aanu la wareegnay waxaanu isla markiiba bilownay howlgalka inaynu qabano diiwaangelin codbixiye. diiwaangelin codbixiye maxaa loogala jeedaa? waxaa loogala jeedaa waxaad ogeydeen ama intiina badan malaqabad ka yartiine doorashadii ugu diiwaangelintii 2008 iyo 2009 inay naga khasaartay oo ay noqotay diiwaangelin kharashna ku baxay isla markaa haddana wixii looga dan lahaa aan laga gaadhin. marka waxaanu bilownay inaanu diiwaangelin aan lagu khasaarin annagoo wax ka baranayna dhibaatadii markii hore dhacday iyo habka u dhacday iyo maxay u dhacday iyo maxaa sababay ayaanu bilownay inaanu diiwaangelin abuurno. waxaanu bilownay abuuritaanka diiwaangelin casriya oo ah mid adduunka kowka ah oo ah war sidee baynu u yareynaa in 2 goor la codeeyo, sidee loo yareeyaa in lagu shubto, sidee loo yareeyaa in 10 qof ku noqnoqdaan inay u codeeyaan mas'uulkay doonayeen. diiwaangelintan casriga waanu raadinay, jaamacado badan oo adduunka aanu ka raadinay, research baa la sameeyey, waxay noqotay inaanu helno diiwaangelin biometric ah oo biometric ha noqotee noocay noqonaysaa. waxaanu markaa raadinay inay noqoto nooc aan la bedeli karayn oo ah in la sawiro isha bu'deeda iyo wejiga. bio saasay ku noqotay. 2 oo ah isha bu'deeda in qofkii laga sawiro 2 indhoodba, markaa wejigana la sawiro, markaa lagu shubo server ama machine inoo yaala komishanka doorashooyinka. waa mid casriya oo adduunka ku koowa in isha bu'deeda diiwaangelin lagu galo doorasho kow inoo ah. waa tijaabo aanu riski ku qaadanay oo aanu lahayn sidaynu u yarayn lahayn ee u minimize karayn lahayn 99.9% in la ilaaliyo inuu qofku 2 goor codeeyo. waxaanu kaloo diyaarinay diiwaangelinta codbixiyaasha oo lagu kalsoon yahay inay noqoto. waxaynu markaynu helnay waxaanu uga dignay dadweynaha ama muwaadiniinta markii aanu soo dhammaynay muddo dheer markii daraasad lagu sameynayay in muwaadiniinta wacyigelin laga siiyo oo aanu joornaalka, TV-ga, raadiyowga meel kasta aanu dhigno muwaadin 2 goor laguma ogola inaad isdiiwaan geliso. haddaad isdiiwaan geliso mishiinkan aanu keenay wuu ku qabanayaa waana lagaa saarayaa liiska codbixiyaasha. waxay noqotay in aanu bal gacanta taag waxaan maxayday ay noqotay in qofkii isdiiwaan geliyey 2 goor iyo wax ka badan ina maqli waayey inuu maxayday helay waajibaadkiisii oo ay noqotay markuu hadda yimi markaanu kaar qaybintii bilownay in uu la yiraahdo raalli ahow 2 goor baad isdiiwaan gelisay ama 3 goor. waa kan sawirkaagii mar aad koofiyad xidhan tahay, mar aad karka soo xiratay iyo mar aad shaadhka bedeshayba. meeluhu ka galay, saacadu galay, waqtigu galay iyo meeshu ka galayba la soo saaray. waxaanu ku xigtay inaynu kaar qaybintii qaybino. kaar qaybintiina waynu ku guulaysanay. bishan aynu ku jirno 3deedii ayay 2 gobolee ugu dambeeyay inoo soo dhammaadeen. aynu soo gabagabaynay iyadoo rihildiin oo aan
xagga amniga iyo nabadgelyada ilaahay inoo suurtageliyey subxaanahu watacaala inaynu gaadhno weliba meelaha ugu fogfog ee maxayday somaliland kaadh qaadashadii markaa muwaadin kasta oo u diyaara inuu codeeyaa kaadhkiisii maanta gacanta ku haysta fadlan inteebaa kaadhkii haysata bal gacanta taaga wanaagsantihiin laakiin in badan baan qaadan oo weliba dhinaca u badan waan ka xumahay inaad lumiso xaqaagii dastuuriga ahaa ee dastuurku ku siiyey dastuurku wuxuu ku siiyey inaad wax dooran karto laguna dooran karo maxaad u luminaysaa markaa maxaa kaa hortaagan waa bilaash wax kastaa lagu diyaariyey lacag baa la geliyey waxa lagu yidhi kaalay uun qaado kaadhkaaga ma garan karo markaa qofku inuu lumiyo ama uu ka wahsado inuu isdiiwaan geliyo oo xaqiisa dastuurigaa qaato si aanu mar dhow dhexda farta uga qaniinin oo aanu odhan haddaan qaadan lahaa kaadhkayga waxaan dooran lahaa hebel oo meel wanaagsan i geyn lahaa ama waddankan meel wanaagsan u horseedi lahaa komishanka doorashooyinku tijaabooyinka iyo qorshaynta diiwaangelinta codbixiyaasha wuxuu bilaabay 2015 waxaa 16 January 2017 waddanka ka bilaabantay diiwaangelintii codbixiyaasha oo casriya lana sawiray bu'da isha taasoo guul ku soo dhamaatay inoo soo hooyatay oo dhamaatayna September 2016 waxay ka qabsoontay 6 gobol doorasho waa la isku qaldaa halkaa 6 gobol baa inaka inoo qoran markan tahay xagga diiwaangelinta ama xagga komishanka waa gobolka Maroodijeex waa gobolka Awdal waa gobolka Saaxil waa gobolka Togdheer waa gobolka Sool iyo Sanaag 6 gobol baa la yiraahdaa 6 gobol doorasho iyo 23 degmo doorasho waxa markaa doorashadu inooga dhacday 21 degmo doorasho waxaana inooga dhicin degmada Dhahar iyo degmada Laasqoray oo markii aanu diiwaangelinta qabanaynay xeeb ahayd oo laga soo guuray oo dadkii badankiisii joogeen degmada Badhan komishanku wuxuu soo daabacay dhammaan kaadhadhka muwaadiniinta isdiiwaan gelisay oo dhammayd 873 iyo saa'id muwaadin oo waddankoo dhan iska diiwaan geliyay intii nasiibka u heshay wuxuu soo daabacay kaadhadhkii muwaadiniinta isdiiwaan gelisay kadib markii sida uu dhigayo xeerka diiwaangelinta number 37 2007 soo baxay laga saaray dhammaan wixii 2 jeer isdiiwaan geliyay iyo wax ka badanba 29 April 2017 ayaa komishanka doorashooyinku bilaabay kaadh qaybinta guulaha laga gaadhay diiwaangelinta waxaa ka mid ahaa in nidaamka casriga ee bu'da isha la sameeyo in diiwaangelin nadiifa maanta inoo aasaasmato oo inoo jiraysa oo rasmi inoo noqonaysa in diiwaangelintu ku shaqayso habka online-ka in waddanku intiisa badan la gaadhay markii ugu horeysay ee la gaadho deegaamo ka mid tahay Taleex oo aan hore doorashana uga dhicin diiwaangelin aanay gaadhin oo meelaha la yiraahdo kacayo ama xallin oo gorowa dusheeda maanta kaadhkii muwaadinka jooga uu haysto in waddanka intiisa badan la gaadhay in maanta dhammaan dadka codka bixinaya ama dhiibanaya haystaan kaadhkoodii codbixinta in diiwaankani uu meesha ka saaray xatooyadii doorashada ku celcelintii codaynta iyo wixii la mid ahaaba aad u mahadsanyahay gudoomiyuhu haddii comment ku daray Saciid Cali Muusaan siin haddii kalena idinkan idinku soo celin doona insha Allah waxaan u jeeday in wax kale ku dari maayo su'aaluhu waa idin bannaan yihiin waa idin furan yihiin su'aal kastaana weydiin kartaan diyaar baan u nahay anagu inaanu ka jawaabno laakiin su'aaluhu waa inay noqdaan kuwa dadka in hadhowto daawanaya telefishinkan ay ka faa'iideystaan idinkuna aad ka faa'iideystaan hayse oranina komishanka caawidin hor fadhiyaan xujeeye oo su'aalo weydiiya laakiin waxa wanaagsan inaynu su'aalaha isu
maxaa ahayd toy aad xulataan qof walba su'aasha u muhiimka ah ee isaguna ka faa'iideysanayo dadkuna ka faa'iideysanayaan weydiisaan aad buu mahadsanyahay Saciid waxa kaloo jira dhowr su'aalood aynu Facebook insha Allah isagana ka bixin doono maadaama dadku dibadda ku maqan dad badan baa xiiseynaya doorashada inta badan daraasadda kuma soo darin tiimkaygu laakiin doodihii la isku qabanayo waxa kamid ah xiisaha doorashada waxa ka jira qurbaha xiisaha doorashada Soomaaliland imku u yar yahay inta daraasaadkan ku sameynay la saadaalinayo way mar walba dadka wala wareysanayo waxa jira qurbaha ka xamaasad badan oo doorashada aad u danaynaya marka kaarmay qaadan mana iman karaan laakiin telefishinadii bay ratingkeygii kor u qaadeen daawashadeedii bay kor u qaadeen marka taasina la socdo insha Allah su'aalahan bixin doona insha Allah si yaro kooban waa asluub leenu weydiinaynaa si xoro oo laabtaad furanteen waxba hal la baqanin muwaadin baatay xaqaagii gacanta waxa ku haya gudida doorashooyinka inaad fursadaad heshaan ka faa'iideyso iyaguna tooda helaan marka dhinac walba waan iska weydiinana insha Allah magacaaga sheegi doontaa iyo su'aashaada Ahmed Aadan Cabdi baa la yiraahdaa su'aasha aan weydiinayaa komishanka waxa weeyaan waxa jira gudoomiyaha iyo afhayeenka aan weydiinayaa waxa weeye 6 goobood oo ku yaala waqooyiga Maroodijeex ama galbeedka saaxil ama bariga Lughaya 6 goobood oo dad badan ku nool yihiin oo inoo dhow ama u dhow Hargeysa ama Berbera u dhow ama Lughaya u dhow on tacab badaniba ku baxay maxaa u dhigi weydeen sanaaduuqdii kaar qaadashada su'aasheedu waa mahadsantiin aad baa mahadsan magacaaga su'aashaada adigoo koobiyo Khalid Yusuf Abdullahi waxa uu diinayaa guddiga doorashooyinka qaranka su'aalaha maadaama tuulo iyo degmo wadanka oo dhan aad qof kasta kaarkiisii haysto degmo kastana la og yahay inta qof ay ka codeynaysa maalinta doorashada la qaban doono marka doorashada la dhameeyo ma jeegataan gobol kasta inta qof ee ka codeysay isla daqiiqada sida ka dhacda wadamada Jarkiina waad mahadsantahay isla goobta marka dadku codeeyaan ma la sheegayaa tirada saxda ee goobta ka codeysay isla markiiba sida caalamka dhacday buu taagay waynu qaybsanaa xaggan xagga u dambaysan siinay waan ku soo noqonaya xagga horena bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdiraxmaan komishanka doorashooyinka waxa weydiinaya waxa dhacday ololo xisbiyo oo aan sharciyeysnayn suu maxamed sheegay inay socdaan horena way u dhaceen digniinna waa soo saarteen digniinna waxba kama socon ilaa hadda kulmiyo wadan way sameeyeen maxaa idin ka qorshaysan mise haddaa shuruuc soo dejistaan yaa damaanad qaada inay fulayaan mahadsantiin aad baad mahadsan saddexdaa su'aalood bay ka jawaabi gudoomiyahan siin doonaa bismillaahi raxmaani raxiim su'aasha Axmed aadan ina weydiiyey muwaadin kasta oo dalka degani wuxuu xaq u leeyahay si dastuuriya inuu wax doorto lana doorto komishanku farsamo ahaan wuu diyaariyey sanadkan inuu 6 goobood ee waqooyiga Hargeysa uu ka qabto doorashada agabkii iyo shaqaalihii iyo dhammaan gaadiidkiina wuu diyaariyey waxaana la socda 3 xisbi qaran iyo dadkii ama xukuumadda wasiiradii nagala maxay idin shaqaynayay annagu waxaanu la shaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha xeer baa siinaya xeer number 32 oo ah xadaynta degmooyinka iyo gobolada oo sharciyan wasaaradda arrimaha guduhu waa inay xadaynta ansixisaa intaanu komishanku tegin goobta 6 goobood waxa isku haysta 3 gobol ayaa isku haysta wasaaraduna ilaa hadda soomay saarin gobolkay raacin lahayd marka goobo la isku haysto gobol la isku haystaan uma fasaxayo sharcigu ama xeer number 20 ee haga komishanka doorashooyinku inay tagaan 3 gobol ee isku haysta waa gobolka Saaxil gobolka Maroodijeex iyo gobolka Awdal
waad mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين هدي أنك جواب السؤال شلبات آدم يوسف وحيد ما دام تولا يدق مدق من لو قرسيه كاركي والله قعدين دونه حد هو عدين تحسم نقون دونتا تو إسلام مركب لو قاعد دقيقة ده ساسه هيد ما فيليا إن وحويان إنه قولي بينا قاعدين هير كعالم ككله إسلام مركبة إلا صولا ليو أتكي مركبة laakiin waxaanu sameynay tutii hore ka wanaagsan oo 3 degmo doorasho in ay noo suura gasho anaga commission ahaan oo xaruntayada markaas ay noogu soo dhacdo totalka guud iyo dadka codeeyay la isu geeyay anaga ay markaas noo soo dhacdo laakiin isla markiiba sida laga arko sida caalamka la oran maayo xisbi hebel intaas soo haya xisbi hebel intaas soo haya xisbi hebel intaas soo haya hadii sartaasaynu daawanaa doorashooyinka caalamka laakiin waanu fududaynay 23 degmo doorasho ayaa anagu aanu heli doonaa isla markaa ay doorashadu dhacdo ay codeyntu dhacdo waana horumar wanaagsan oo inoo soo kordhay muddo ka bacdi ugu badnaan 7 maalmood ayaanu markaa ku dhawaaqi doonaa doorashada insha Allah sida u dhacdo haddii aan halkaa ku noqono miyaan la odhan karin marka goobta lagu codeeyo xisbiyadii muraaqibiin baa u jooga tirada kala heleenna goobtii ku ogaanayaan isla markay goobta xidhanto marka fursadaasi way ka wanaagsan tahay in hore loo ogaado markaa way wanaagsan tahay miyaan la odhan karin oo ay halka idinka soo dhacayso bulshada u dhici karta saacada kadib maadaama muraaqibiintiina joogaan isla goobtii marka la xidhayna tiradii baa la hayaba taasi waxa weeyaan nidaamka caadiga ah ee doorashada ay ku dhacayso waxa weeyaan goob kasta waxa jooga komishanka doorashooyinka qaranka iyo 3 xubnood oo u fadhiyo doona 3 xisbi ee tartamaya isla goobta waxa lagu saxiixi doonaa codku sida u dhacay xisbiyadu sida u kala heleen liis baa jiri doona la saxiixo saxiixaas la isla qaadan doona goob walba markaa waxa lagu soo gabagabeyn doonaa inta ka codaysa taasi markaa noqon mayso in goob walba la soo sheego laakiin anaga ayaa isu geynayna dabeetana taasi ku soo bixi doonta laakiin xisbi waliba wuu og yahay saacada inuu helay iyo in laga helay aad baad mahadsan meesha waxa weeye intaas aan sii xoojiye waxa weeye marka ay saxaan xisbiyadu iyo commissionkii la isku raaco haddii ay cabasho qabaan qolyahaasi cabashada cidii xisbiga qabaa markiiba wuu oranaya cabashadiisa haddii la isku raaco sida xisbiyiina markiiba waa la saxiixaya waa la gudbinaya markiiba isla markaana waxa imanaysa qoraalkii iyo natiijadii waxay ku soo dhacaysaa xarunta commissionka doorashooyinka iyo degmada ay goobtaasi ka kooban tahay marka wax qarsoodiye maaha wax la qarinayo maaha waa wax cadaan ah oo waadix ah oo markiiba la ogaan karayo su-aashii xisbiyada ololihiina bilaabeen cabdiraxmaan wuxuu ka hadlay arrimaha ololaha iyo howlaha xisbiyada iyo kaas sidaad ogsiintihiin commissionku wuxuu u qorshaysan oo wax meel walba u yaala waxa weeye jadwal baa u samaysan kaasaanu ku soconnaa maalin walba waxa aanu qabanayno waxay ku xidhan tahay jadwalkaasi noo yaala sida aanu awaliyadda u kala siinayno waxa markaasi la qabanayo subaxa ugu horeeya markaanu tagno xafiiska waxaanu la soo baxnaa jadwalkii waxaa jooga waxaanu leenahay secretariat rag dhalinyaro ah oo aad u shaqeeya oo hadda halka ay nala fadhiya oo hawlahaasi noo qaabilsan subaxii markaanu soo gallo annagu wax iskama qabsanno oo keligaye waxayna brief garayaan oo noo sheegaan sida xaaladdu iyo barnaamijku sida uu yahay waxa maanta la doonayo in la dhammaystiro waxa berito iyo sida ay tahay taasi ayaanu markaa ku dhaqaaqnaa oo ka shaqaynaa ilaa intay nagu qaadanayso hawshaasi maalintaa kama tagno oo waanu wadnaa inkasta ha nagu qaato waxaanu laga yaabaa inaanu duhur ku tukanno casar ku tukanno maqrib ku tukanno mararka qaarkoodna cishee bay nagu gaadhaa marka jadwalkaasaanu ku shaqaynaa jadwalka imika inoo yaallaa oo meesha yaallaa waxaa weeye oo xagga ololaha ku saabsan bisha Oktoobar ee soo socota 21keeda ayaa ololaha xisbiyadu 3 xisbi ay bilaabanayaan mid walba wuxuu leeyahay 7 cisho oo uu ku ololeynayo kaga dhergaayo marka waa sida horta nidaamka hase yeeshee waxaa jirta in ay dhacday hore ay u jebiyeen sharcigaasi xisbiyadu laakiin sidaa kumaanaan daynay waanu ganaaxiina maalin dhaweyto waxaanu sheegnay inaan bixin laakiin caawa waxaanu sheegaynaa inay ganaaxi bixiyeen xisbiyadii aanu ganaxno 2 xisbi ka koobnaa oo ah xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye wixii dambe iyana ah olole
aan loogu talagelin waqtigiisii haddii aanu aragno waxaanu leenahay guddiga anshaxa oo iyagu hawlaha mooye wax kaleba aan la socono intaa ilaalinaya guddigu markaa waa eegayaan hadday arkaan isu soo baxaasi iyo waxa halkaa ka dhacay xisbigaasi uu ka sameeyey inay olol yihiin report bay qorayaan reportkay noo soo qoraanna waa noo soo gudbinayaan ganaaxuna halkaasuu ka imanaya ganaaxu mid weliba ganaaxu markii hore wuu yaraaya iminka waxaan idiin sheegaynaa inaanu kordhinay si ay u baqdaan oo aanay ugu dhiiran waayo xisbiyada qaarkood waxay dhahaan lacag ma haysano marka sidaa darteed wixii hadda ka dambeeya ganaaxuna waa ka badan yahay intii hore tus haddaan intaa idin yara gabo ku daro waxaynu la saxeexanay oo ogtihiin anshax xeerka anshaxa sharci la yiraahdo ama qaanuun la yiraahdo marka xeerka anshaxa ee diiwaangelinta waanu la saxeexanay kii kaar qaybinta waanu la saxeexanay waxay leeyihiin marka uu sharcigu anaga nagu hogaaminaya marka hore inaanu si feerbala ama hadala inaanu digniin u siino marka xigana digniin qoraala intaaba way soo dhaafeen waxa ugu dambeysay inaanu digniin ganaaxa siinay ganaaxiina way bixiyeen hadda waxaa diyaara oo gacanta ku jira saddexda xisbi qaran xeerkii anshaxa ee lagu gelayay doorashada kaasoo aanu adkaynay oo ilaa dhowr iyo 20 beeja kaa markaa waxaanu ugu talagalnay haddaanay fulinayn inaananu ka saxeexin oo aanay saxeexin waa inay fuliyaan waanu ka adagayay ganaaxiisuna wuu ka badanyay gudoomiye haddii aan tixraac ku sameeyey su-aasha inanka u dambeeyey uu ku weydiiyey ganaaxiinu wuxuu ku ekaa markii ay ololaha sameeyeen kulmiye iyo wadani ee ay kala tegeen weliba gobollada bariga labada xisbiba iminka kulmiye wuxuu tegey gobollada galbeedka wadani wuxuu tegey gobollada bariga ganaaxiinii kadib weeyaan ma muuqataa in weli sharcigiisii jabayo horta waxaad la socotaan markaanu miidiyaha la hadlayno waxaan filayaa inaad maqasheen markaanu khaas ahaan joognay sool digniin culus baanu siinay hadday xukuumadda tahay iyo hadday xisbiyada tahayba marka waxa weeyaan qaanuunka waa in la ixtiraamaa ama sharciga waxaa lagu ixtiraamayaana markaan anagu sharcigii soo dejino waa in fulintii la helaa fulintii xukuumadda waa in la fuliyaa lagu qaadaa sharciga ay jebiyeen iminkana way jebiyeen ganaax bay leeyihiin waanu soo saaraynaa laakiin waxaanu idiin sheegaynaa oo aanu iyagana hortiinna aanu ku karnaqsannay markaanu joognay magaalada laascaanood miidiyaha aad ka maqasheen madaxweyne qofka doonaya mas-uulka doonaya inuu madaxweyne waddankan u noqdaa waa inuu ixtiraamaa disbiliinka iyo sharciga u yaala komishinka doorashooyinka hadduu hadda ixtiraami waayo sidee buu inuugu hogaamin doonaa inuu mar dhow ixtiraamo markuu madaxweyne noqdo inuu sharci waddanka ku dhaqo idinka weeyaan markaa dadka kala saaraya annagu guddi farsamaanu nahay intii karaankayaga waanu samaynay waananu samaynaynaa laakiin waa dadweynaha iyo muwaadiniintu waa inay kala saaraan qofka ama mas-uulka jebiyey sharciga ee hadda ku dhaqmi waayey siduu idiin hogaamin doono su-aashaas waa mid idinka idin taala aad buu mahadsan yihiin su-aalahan bilaabanaynaa xagga horaan siinaya iska yarna sideentiina kale xaggaasan ka bilaaba insha allah ninka waa mahad cabdi maxamed oo ku magac dheer cawke laba su-aalood baan isla haweydiin laakiin waan soo gaabnay insha allah mudane gudoomiye ama gudoomiyayaal waxaa maanta hortiina yaala mustaqbalkii iyo masiirka ummadda reer somaliland bari ilaa galbeed ee dhabbada adag weliba loo soo maray ma jiraan qorshayaal caqligal ah ama macquul ah oo aad ku beenin kartaan aragtida shacabka ee odhanaysa komishankan maantu waa komishan aan dhex u ahayn u garsoorka codka shacabka wabilaahi towfiiq waad mahadsantahay hablaha mikrofoonka sii dhiirata حمدة محمد عبد الرحمن xamse maxamed dhammaan waan salaamayaa marti sharafta kasoo qayb gashay madaxda halkan inoo fadhida aad baad u mahadsan tihiin su-aashaydu waxay noqonaysaa doorasho xor iyo xalaal ah in la qabsoontaa waxay u baahan tahay madax iyo dad dhammaan in loo wada heeganaado si wada jir ah oo dadka codaynaya ay u diyaar ahaadaan oo ay si daacadnimo u shaqeeyaan shaqaalaha iyo dadka komishinka u hayaa sidoo kale madaxdu sidoo kale haddaba kalsooni intee leeg baad ku qabtaan qalabkan aad keenteen ee casriga ah in uu doorasho xalaal inoo keenayo aad qaban kartaan dadka ku noqnoqonaya oo meesha uu ka saari karo qishka
su-aashaydu waa taa aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay dhexdan ku noqonaya haya dhexda dareensiinaya way aniga magacaygu waa maxamed axmed su-aal ah ku saabsan xeerka imika gudoomiyuhu sheegay imika doonayaan in xisbiyada la saxeexdaan kan imika soo socda xeerka anshaxee soo socda xeerka anshaxee doorashada imika soo socda waxaa ku jira qodob ka mid ah oo ka hadlaya guddiga xalinta khilaafaadka markaa guddigaasi shaqada uu qaban doono qodob ka mid ah wuxuu dhigayaa in muxuu ahaaye uu yahay bridge isku xidhaya commissionka iyo xisbiyada qaranka marka macnaheedu waxa weeye inaanu commissionka iyo xisbiyada aanu toos soo arki doonine commissionka iyo xisbiyada qaranka iyo in guddigaasi is arki doonaan ee aanu toos soo arki doonin commissionka iyo xisbiyada qaranka aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantihiin inagoo su-aalaheena haysana bal dadka ra'yigoodana aynu dhegaysano barnaamijka imika waxaa lagu daraa ra'yul caamka dib baan u soo warinaa suuqa marka in yar baa cabdirasaaq isagoo mahadsan 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqaanu samaynaa qolada commissionka waxaan leeyahay ummadda meel kastoo joogtaba cadaalad baa deeqda meel kastoo ummadda ay joogto wax cadaalad la yidhaa unbaa deeqda iyagoon midnaba aanu eexanayn ummadda waxaan leeyahay cadaaladda ayaa deeqaysa ilaahayna idinku asturo xil aad u adag baad haysaan kolkaa waxaan leeyahay cadaaladdu mar kasta ha laga hadlo kolley waxaan leeyahay haddii qolo la yidhaahdo war saas haladii ka guulaystay inay aad iyo aad uga qancaan oo waddanka inooga ilaaliyaan wax allaala wixii shoobara ah iyo dhibaato ah waayo innaga hal qof inagama go'o oo nin walba waa ogyey komishanka qaranka waxaa kasta digtobaynayo xisbiga wadani oo kale uu ka hadlayo leeyahay kuma kalsoonina la keeno niman khubaro ah oo doorashada indhaindheeya waana nagnaa tan Kenya ka dhacday oo dalan jaarna haya oo in la isku haysto doorashadii maxkamadda dib u gaamisan dib loo qabto marka komishanka waxaa leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda ka mas'uula haddii doorashada wax khalad ku yimaado oo ay dhacday in doorashada dee kale lagu shubto kale ama kale sida uu hadlayaba marka xoolo aad ku dhex noqda dalka si wanaagsan u maamula idinka daladinta fiirsanaya waxa tiraahdaa go'aankiina marka go'aankiina waxa dhanna waxa gelina si dadku bulshada badankeedu ka amsatay inaad u yara badantii ka xisbiga kulmiye marka waxa leeyahay si wanaagsan dhex noqdo bulshada dhex wahaada anigu komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan cadeynayaa in si cadaalad iyo dhax mar walba wax u qabtaan taana mujtamacu ku qanacsan yahay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland wax eedayna looma soo jeedin karo wallahi adeer waxaan oran lahaa gudda doorashooyinka innaga shuruucda ay sameeyeen ay xisbiyada dhan ku qanceen waxay noo dheer dad diin la baynu nahay oo kulley wadamada jaarkeena sidoo noqon mayno waxaan u jeclaan lahaa inay ku guwaabiyaan xisbiga guuleysta amba kala guuleysto inay natiijada doorashooyinka ku qancaan guddi ahaan nidaamka iyo shuruucda ay sameeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanay waan ku qanacsanay bismillaahir rahmaanir rahiim komishanka qaranka Soomaaliland waxaan weydiinayaa waxaan u sheegayaa inay doorashada qaranka ay dhex ka dhigaan laakiinse aanay bila cadaalad ku shaqeynay cadaalad ku shaqeeyaan nabadgelyada oo nin waliba nabadgelyada ilaaliyo inoo maxaa yeelay nabadgelyo la'aan waa dhibaato weeyaan markaa waddanka dhibaato u soo jiidaysaa markaa waxaan jecelahay in u dhacdo si nabadgelyaha doorashadu yaa tacaadaadka iyo waxyaabaha isku marnaa dibadda la joojiyo kala duwanaanshaha raayul caamku waa wax muhiim weeyaan marka mar walba barnaamijkeena uu la socdaa 3 su'aalood baa la weydiiyay 3 su'aalood bay commission ka jawaabi doonaan insha Allah su'aasha ugu dambeysana waxaan filayaa inaanay dadkeenu aad uma aqriyaan shuruucda iyo nidaamkii anshaxa laakiin su'aal aad u muhiim ah ayado waxyaabaha muhiimka ee guddiga doorashooyinku ay gacanta ku hayaan imika ama khilaafa ka taagnaada ama uu ka taagnaan su'aashii inankii dhacdo uu weydiiyay ugu dambeysay waana meelaha imika khilaafka xisbiyadu uu ka taagan weeyaan kusoo dhaw gudoomiye bismillaahir rahmaanir rahiim markaan u jawaabo cawke wuxuu yidhi sidee baad dhex u noqonaysaa ama laydinku kalsoonaan karaa ama macquul ay u noqon kartaa qorshihiinu marka hore ummad islaam aynu nahay ummadda islaamkiina waxa weeyaan caqiide iyo diin bay leedahay annagu 7 commissioner waanu dhaaranay kitaab baanu gacanta saarnay waxaanu ku dhaaranay inaanu dhex u ahaanayno 3 muwaadin tartanku ka dhaxeeyo marka xigta haddii laga tegi waayo waxaanu la soo shaqaynaynay xisbiyada qaranka muddo 3 sanadooda waxaan filayaa inaan idin weli naga maqal annagoo isjiidanayna ama iyagoo le dhex maaha nimankanu ama annagoo miidiyaha isu marinaynaa
hadalla qallafsan oo adag saddexda xisbi waxaa wakiil u ah guddi farsamo oo ah guddi nala shaqaysa oo noo ah bridge annaka iyo xisbiyada guddidaa farsamo waxay ka kooban yihiin 6 xubnood guddigaa farsamo ee xisbiyadu waxay ka kooban yihiin 6 xubnood 2 xubnood xisbi kasta waxay joogto noola shaqeeyaan oo xidhiidhka aanu la leenahay xisbiyada iyo shaqadayadaba ay ku kontroolaan iyagoo oo xafiis ku leh komishanka dhexdiisa isla markaana si toosa noola shaqeeya oo eega wixii qaladaada ama wixii gafafa ee naga soo baxa iyagana lagama hayo weli dhexdhexaadnimo timi dhexdhexaadnimo haddana waataanu u raadinay inaanu idiin keenno system ama qaab aan waxba loo xadi karayn lagu shuban karayn 2 goor la isdiiwaan gelin karayn 2 goor la codayn karayn systemkaasaanu idiin dhisnay systemkaasuna waxa weeyaan mid idinka oo qarankana faa'iido weyn u soo jiidaya markii ugu horreysay ee ay dhacdo doorasho xor oo xalaala oo labadaba ka socota tii aaminaadana lagu aaminay iyo tii systemkaanu idiin samaynay oo ah system aan haba yaraatee qalad samaynayn oo idiin hagaagsan marka waxaan idin leenahay ku kalsoonaada systemka oo haddii qaladba yimaado ama cabasho timaado markay doorashadu dhacdo dub loo raacayo waddadii dub loo raacayo oo la ogaanayo meeshuu qaladku ka yimi markiiba waa system isagu iskontaroolaya oo check and balances u ah oo transparentna u ah saddexda xisbi qaran ee idinka wakiilka ah taa halkaa aan kusii darayso amriya su-aashaydii labaad baad in badan ka jawaabtay guddoomiye aan kusii daray mahadow horta waxaa tiri waa la yidhi ayaa yidhi ma garatay wixii haddii maxamed awaala de kuma hadli karo kuma sheegi karo soo maadan garan weliba dadka dee aqoonta leh ee haddaanad qancin waad sheegi karaysaa waa inay ka fogaadaan in la yidhaahdo waxaasaa la yidhi marka wixii la yidhi dee yaynaan la imanin waxa xaqiiqada aynu meesha la nimaadno midda kale wuxuu sheegay guddoomiyuhu wuxuu yidhi waanu dhaaranay kitaab baanu gacanta saaray waa runo waanu saaray weliba iyagoo sawiran bay gidaarka noo suran yihiin subax walbana waanu eegnaayoo markii aanu kitaabka la dhaarinayay meeshay noo suran yihiin waa isxusuusinaa subax walba marka laakiin dadka baa laga yaabaa badan baan dhaartu waxba lahayn hablihii iyo inamadii noo shaqaynaya ee commissionka ee gobollada joogay marka dad baa culays saarayay oo doonaya inay kaadhkii si aan xalaal ahayn uga qaataan marka waxay samaynayeen waxay oranayeen marka dhalinyaradu yiraahdaan adeer waan dhaartayoo waa la soo dhaariyo jaamacadda markaan joogaa la soo dhaariyo waxa la yiraahsiin adeer amba waa la dhaariyay waxba ma aha iska keen amba meel baan ka shaqeeyaa waa dhaarsanahayo haddana waan marka waxa weeye inay qofku isku kalsoonaado dhaartana la ilaaliyo marka uu guddoomiye sidan leeyahay waxaan uga jeednaa annagu waanu ogsoonahay inaanu dhaaranay waxaanu doonaynaa dalka kan inaanu wax uga tagno ma doonayno inaan la yiraahdo 5 sanadood bay meesha joogeen oo iska fadhiyeen ma aha berigii hore waa ogsoontihiin oo ayaamii horeeto dadka lamaanaan hadli jirin meel baan isku soo xiri jiray waa shaqayn jiray dadku waxay war kuwan habeen iyo maalin meeshu bay ku jiraan maxay qabtaan horta ilaa diiwaan gelintii la galay oo kaar qaybintii la galay dad badnimaba xaqiiqsan mana rumaysan komishanku waxa ay qabanayeen imika meeshaan marra waxaan leeyahay war wax fiican baa qabateen qof noo duceeya mooyaan cid kale ma aragno dadkana waxaan ugu jecelnahay qofka noo duceeyo yiraahdo ilaahay hawsha ha idin fududeeyo marka intaasaan rabay inaan ku daro maasantii su-aashii dambe maya mali maanaan jawaabin waa noo dhiman tahay waxa weeye waxaan ka jawaabayaa su-aashii gabadha xamda ayaan ka jawaabayaa waxay ka hadashay qalabkay ka hadashay oo su-aal naga weydiisay qalabku waa qalabka aanu idiin sheegno adduunka meel lagu isticmaalay ma jirto baanu idin niri waa wadankii ugu horreeyay baynu nahay ee isticmaala kan iriska ama bu'da indhaha la isticmaalayo waana kan lagu qabtay dadkii doonaya inay isdiiwaan waxaanu kaga cararaynaa waxa weeye in aan ayan dib ugu noqon dadku oo aanay noqon wixii la dhici jiray la iska footeyn jiray fartii la iska masixi jiray ayan dib dambe u dhicin baan u samaynay oo aan u qaadanay dhowr arrimood baan hor yiilay oo
komishanka hor yiilay oo la kala xushay 3-4 bay ahaayeen baan u malaynayaa marka kan ayaa la xushay sababta loo xushayna waa maxay in uu yahay mid aan la khiyaameyn karayn inuu yahay weeyaan marka waa kii dadkii faraha badnaa ninbaa meel tuula iska diiwaan geliyey markaasuu dhaqaaqo magaalo tagu iska diiwaan geliyey mid kale saylac iska diiwaan geliyey markaasuu iska diiwaan geliyey haddana mar kaleeto ceergaabo intiiba waa qabanayaa qaar baa dharkii bedelay oo yidhi dharkaan bedelayaa isagoon koofiyad gashan mar dambean koofiyad gashan marna madaxu kaa wen yahay buu soo galay dharkii buu bedelay markii la sawirayay wuxuu yidhi ishaa qabanayso marna kor buu eegay marna dhinac buu eegay mar sidaasuu u eegay wixiiba way qabatay waxay isdaynaysaa baashan horta ma jirto waa ogsantihiin oo dadkiina badan waxaan leeyahay inay qurba joogtihiin anigu markaan ku noqdo ingiriiska oo tago baasaboorka aan sito meel baan geliyaa baasaboorka waxaana eegaa indhaha ayaan egsaas u eegaa dhag layn casow gelina soo baxayo oo ku aqbilayo oranaya waad qaado baasaboorka oo dhaaf bir halkan aad joogto automatically iga furmaysa haddii qof kale to baasaboorkayga qaato dee way qabanaysaa marka taasi way sahlaysaa oo maxay tahay waa arrin iyadu markiiba qabanaysa telefoonka soo baxay waa inaan adduunkana la soconnaaye telefoonka soo baxay iPhone-ka la yiraahdo iPhone 10 waad aragteen waxa la yiri markaad wajiga sidaa u furto uma baahna inaad password waxba geliso markaad sidaa u eegto istiraado indhahaagu u arko ayuu automatically u furmaya inkastoo ceebo kalena leeyahay marka waxa weeye ishani ishaasi ayuunbaa kuu furaysa wax kaloo kuu furaya ceebaha kale sheegi mayl mahadsantahay Saciid su-aashii dhexdaynu geli doonaa su-aashii ugu dambeysay waqtigana waynu koobi doonaa insha allah kaltuun waxaan su-aasha xamdaan in yar sii yaraa xoojinaya waayo waxay ku taxalluqdaa doorashada iyo kalsoonideeda iyo codka sida loo dhiibanayo iyo qalabka sida loogu kalsoon yahay waxa weeyaan hadda maaha qalabkii sidii hore diiwaangelinta oo kale ee kombiyuutarada ee serfarka markaaba ay kusoo dhacayeen maaha waxa weeyaan qofka kaadhkiisii buu qaadanaya kaadhku kusoo codaynaya goobaha la iska diiwaangeliyey goobaha kaadhka laga bixiyey waxaa la dhigi doonaa liiska codbixiyayaasha tusaale goobta hadday 300 qof iska ka qaateen kaadhkii ama ay 500 qofba ka qaateen 500 qof magacoodii un baa yaala qof kale oo magaciisa halkaa ka heli karaa ma jiro haddii aad istiraahdo waa adiga halkan ka soo codeeyay halkan kala tago bal imikana inaad cod labaad ka dhiibato ma suuro gelayso marka doorashadani aad iyo aad baa loo kantaroolay oo ay ugu kooban tahay keliya goobihii laga qaatay kaadharka qofkuna halkaas un buu tegayaa oo ka codayn doonaa insha allah weliba haddii aad istirahdaan serfarka iyo waxba iyagana la geli karaa serfarku online maaha meel buu iska yaallaa waxaa ku jira uun magacyo iyo waxyaabaa ku jira kaleeto waxa kaleeto u qabanayaa ma jiro internet kuma xidhna meel kalena ma qabanayo shaqadiisiina isagu waaba dhammaystaba oo waxay ahayd inuu magacyada markii la geliyo kaadharkii hadhay haddii xitaa kuwaa shaki ka qabtaan meel aakhir ah qabri in la eg baan u qodnay way ku jiraan cid gaadhaysaana ma jirto saciidu mahadsan laakiin kaltuun waxaan ka jawaabayaa su-aasha intaanad su-aasha u gelin waxaa jirta 500 qof baa ka codeeyey tusaale ahaan goob la dhigay inay iska diiwaangeliyeen kaadhkoodiina la geeyey 300 qof baa yimid 200 qof baa maqnaaday 200 qof ee aan goobta iman miyaan la musuq maasuqa karaynin codkooda maadaama ay goobta ka diiwaangashayiin halkaas musuq maasuq ma ka dhici karaa way waxa weeyaan su-aal aad u wanaagsan horta musuq maasuq goormu dhacaa waa mar lagu heshiiyey oo dadka goobta wada jooga ay ku heshiiyaan dadkan goobta jooga horta maba aha dad wada heshiin kara saddexdii xisbiye tartamayey muraaqibiintoodii baa fadhiya nin waliba wuxuu eeganayaa codkiisii in loogu ridayo in kale wuxuu eeganayaa tirada wuxuu ku tirinayaa xisbiyada hortooda inta soo hadhay saddexda xisbi waxay isla qaadanayaan markaa imisaa soo hadhay intaa marka la tiriyo 200 ee soo hadhay meel baa lagu ridayaa waa la xafidayaa magac baa lagu dul qorayaa komishanka doorashooyinka qaranka la wareegaya oo bogoskoodii ku ridaya waxay saxiixayaan markaa in goobtaa 300 qof ay ka qaateen sidaasaanay ku xafidan yihiin aad baad mahadsantay waay su-aasha weli su-aal baa jirta aanaan ka jawaabin su-aasha saddexaad oo ahayd guddiga xalinta khilaafaadka waxaa laga yaabaa in si ka duwan sida ay u qoran tahay loo fahmay haba yaraata ee ma jirto guddi kale oo ka talin karta arrimaha doorashooyinka oo aan ahayn guddiga doorashooyinka waa awoodda guddiga doorashooyinka wax kasta oo doorasho ku taxalluqa
oo cod ah haddii cabasha ay timaado ama ay qanci waayaan xisbiyada qaar ka mid ay doorashada ku qanci waayaan oo komishanka doorashooyinka ay ku qanci waayaan natiijada uu soo saaray waxay toos u tegayaan maxkamadda sare haba yaraatee meel ka hooseysa ama cid kale oo xisbiyada qaranka iyo komishanka doorashooyinka qaranka u dhaxaynaya ma jiraan laakiin maxay qabanayaan guddigani waxay qabanayaan waa qaab wacyigelineed waa guddi ka shaqayn doonta bulshaday la hadlayaan iyagu maaha xisbiyada shaqo kuma laha komishankana shaqo kuma laha doorashooyinka weyn ognahay oo dadka qaar baa khilaaf sameeya oo markay safka taagan yihiin oo kale khilaaf sameeya propaganda kala abuura kuwaasaa loo baahan yahay inay ka hortagaan oo ay la hadlaan oo ay wacyigelin sii sameeyaan inta aanay doorashaba dhicin haddii maalinta doorashada lafteeda ay arkaan goobo dadka qaar ka sameynayaanna inay la hadlaan oo ay ama miidiyaha u mariyaan ama goobtaa markaa intay tagaan marka khilaafaadka halkaa ka jira ay xaliyaan laakiin shaqo kale oo ay qabanayaan ma jirto laakiin guddida waxaa qaadacay Faysal Cali Waraabe saan filayo Sonsaaf baa diyaarisay taasi miyaanay kalsooni darro guddida lafteeda abuureyn kolley guddiga waa run laba xisbi baa hadda weli kasoo jawaabay oo guddiga weli maanaa fahmin bay leeyihin taasi waxay u taallaa markaa ururadii ku shaqada lahaa iyo xisbiyada laftooda inay isla fahmaan la isla eego maca komishanka lafteeda haddii loo baahdo qancin loo baahdo la iska qanciyo wixii markaa la isla qaatuun baa la qabanaya insha allah waad mahadsantay waad mahadsan aynu qaybsan way halka wasii daray wadi siinaya madasha aad baan u salaamayaa nin caana baan ahay oo madaxweynaha mustaqbalkaan ahay barasho wanaagsan waxaan weydiinayaa komishinka ka madaxweyne mustaqbal ahaa magacaagu mad halkan ku joogtaa madaxweynaha mustaqbalka la yaqaanaa meel walba ka hormara magacaagu mad halkan ku joogtaa madaxweynaha mustaqbalka madaxweyne magacaaga noo sheeg waay su-aashaydan u gudagelayaa isla magaciisa madaxweynaha mustaqbalka su-aashaydan u gudagelayaa ka madaxweyne mustaqbal ahaan waxaa jira dad sawirkii qaban waayey dabeetana la siiyey warqado cabasho ah markii dambena aan loo soo samaynin kaarar iyo waxaa kaloo jira dad kaararkoodii la iibsaday guddoomiyaashii goobahana aad xidheen muddo yar kadibna la sii daayay kaararkaasi ma noqon karayaan kuwa hadhowda lagu shubta dadka aanan haysan warqadaha cabashada haystana sidee bay u codayn doonaan hadhowdii su-aasheedu waa intaa aad baad u mahadsan aad baad mahadsantay halka dambe waa inanka taagan maansi inanka halkan magacaygu waa mukhtaar maxamed caabi su-aashan doonaya inaad weydiiyo waxaa weeyaan marka aad tagto goobta bowling station codbixinta ee aad kaarkaagii sidato ma liiska magacayga ka eegaysaa oo saasaan ku codaynaya mise indhaha ayaad mar labaad iga qaadaysaan si aad isku maajkaraysaan kaarkayga iyo maxayday wejigayga su-aashu waa taa aad baad mahadsantay waay aad baan xagga maan siin doona magacaygu waa fadxiye maxamuud kulmiye waxaa jira markii la qaybinayay kaadhasha diiwaangelinta ee iminka ugu dambeysay dalka waynu ogeyn waxa ka jirtay abaar baa ka jirtay dadku way guurguurayeen sidoo kale haddii magaalada laftarkeeda loo yimaado dad xanuunsan ayaa jira oo kaadhashooda yaalana waynu ogeyno kaadhasha la iskuma qaadaynin balse dadka iminka guurguuraya oo kale waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan inkasta oo lagu cayimay goobaha qaar 14 cisho oo kale gobolada qaar hase ahaatee dadkii ayn ka soo gaadhaynin goobtii inay kaadhkoogii qaataan kumishinku ma u diyaariyey muddadii ka dambeysay diiwaangelinta amba magaalooyinka ha ahaadaan amba goobaha komishanka ee ka jira caasimadaha ha ahaadaane inay kaadhkoogii heli karaan amba qofkii xaq buu u leeyahay waa muwaadine dan ayaa qasabtay inuu kaadhkiisii heli kari waaye in loogu geeyo goobtiisii su-aashaydu waa taa waad mahadsantahay aad baad mahadsantay aad baad mahadsantay waa 3 su'aalood 2 su'aalood baan idinku darayaa 2 su'aalood baan ugu darayaa su-aasha sii xagan su-aalna dhexdaad sii markaa magacaygu waa cabdiqani axmed cabdiraxmaan ka socda jaamacadda Badr International University fakalka BBA waxaan weydiinayaa guddiga doorashooyinka maadaama la sameeyo ololo qeyro sharciya aad ka soo saarteen yacni ganaax ilaa imikana aan lagu waantoobin bal ee xisbiyada qaar ay ku ololeeyeen hantidii qaranku wada lahaayeen sida hadday ta leebarkii dowladda hadday ta gaadiidkii dowladda fagaarayaashii khaaryada idaacaddii raadiyo hargeysa tvgii qaranka go-aankiina maalinta doorashada maxaa laydinku aamini karaa aad baad mahadsantay magacaa iyo su-aasha axmed cabdi ibraahim komishanka qaranka ee qaaliga aad baan ugu mahadnaqayaa yehon cable barnaamijkana aad baan
I wave my hand dhalinyaradan looyarada ah ee kolley cidda kala wada doodaysana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sidii wanaagsan ay uga soo qayb galeen kolley su-aasheedii waxay tahay mahadnaq komishanka kadib marwadayda qaaliga komishanar kaltuun oo halkan caawa fadhida su-aal baan weydiinaya Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. qof qaaliya oo qiimo leh wey su-aasheedu waxay tahay marwe kaltuun xaggeen ka codaynaya aad iyo aad baa xaggeen ka codaynaya marwe kaltuun aad iyo aad baa u mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmat waxaan filaya waa 5 su'aalood marka dambaan idinku bilaabi doonaa ha dhammaadaan 5 su'aalood waan idinku bilaabi iyagana waxaan jecelnahay inoo soo koobaan commissionku si aynu dadka hore ugu celinno su'aalaha iyagana su-aashii ugu horreysay madaxweynaha mustaqbalka madaxweyne waxaan kuu sheegayaa dadku waa run waxa la yidhahdo override imika override baa la yidhahdaa waa dadka indhuhu ay si uun u qaban waayaan ama qofku ha indhala aado ama si waxyaaba ili ha ka wanaato ama labadaba ha ahaato ama siyaabo kaletoba indhaha wax kale ha ka jireen si kalabaa loo isticmaalayoo beri dhaweyto maraan ceergaaba joogay ayaa qoryihii noo shaqaynayay ayaan ku idhi war ninkan muxuu la buuqayaayoo la qaynanaya markaasaa la yidhi gabadha waxay igu tiri waa override markaasaan overridekii baan overrideka muxuu ujeedaa overrideku maaha kii kaarkiisii ee isaga ii tilmaamaysa inuu yahay yani qof indhaha wax ka qaba yani magacaasayba yani u bixiyeen baan ku leehay marka waxa weeye dadkaasi markii horena waxaa loo samaynayay wax la yidhahdo override oo ah in qofku diiwaangelinta goobta joogaa uu la soo hadlo xarunta oo markaa loo oggolaado markiiba maalintiiba 9 qof oo indhaha wax ka qaba saasaa loo samaynayay goobaha qaarkood dhibaatay ahayd oo meelihii aan online-ka ahayn xoogaa laakiin inta badan dadka waa loo samaynayay dad baa jirta iyadoo overridekii loo sameeyey haddana ama loo oggolaaday oo ruqsaddii la siiyey eeyan qaban ayaa jiray marka dadkaasi waxaa loo sameeyey cabashooyin baa loo qoray qaarkood kaadhadhkii dib baa loo siiyey qaar kale oo aan la siin baa jira oo imika xitaa mar kaleeto cabashooyinkii soo qortay kuwaana cabashooyinka inta hadhay oo imika la doonayo in aanu ka gaarsiino inta bishantana oo aanu goob kasta geyno una degmo kastana geyno weeyaan maha goob kasta ee degmo kasta geyno oo komishanka goobta degmada noo jooga ay qaybiyaan ayaa markaasi qaybin doona oo siin doona waxaa jira iyagana waraaqo kaleeto oo iyagana fasaxa oo loo siiyey sida kaadhka u shaqaynaya oo iyagana loo oggolaaday oo aan u qoray komishanka u qorayaan iyagana ay markaasi ku gelayaan goobta su-aasha kaleeto ee uu weydiiyey oo ahayd kaadh baa la iibsaday komishanku warka ma hayo kaadh la iibsaday meel lagu kala iibsanayo lagu kala dilaalayana maanaan arag meel gacanta hoosta la isaga halkeynaya maanaan arag dee ma garanayo taasi aad u xaqiijin karto waa sidii su-aashii ninkii mahado cawke uu ka jawaabay waa la yidhi weeyaan baan u malaynayaa tan qudheedu haddii la iibsado maxaa sharciya hadday dhacdo maxaa sharcidii ka yahay sharcigu waxa weeye qofku inuu kaadhkiisa la yimaado maalinta codbixinta la codaynayo kaadhkiisa kaadh aan ahayn uusan ku codaynayn ee kaadhkiisa uu la imanayo ku codaynayo sidaa weeyaan waanu maqlay warar kaleeto oo sheegaya dad loo ururiyey meelaha qaarkood oo la yidhi dad baa haya oo qaaday laakiin kaadh kuwa qudhooda iyo waxyaabo kaleeto oo aanu aragnay komishanku arkay in ayan si aan saxayn ku baxeenba tallaabooyin buu ka qaaday kaadhka waxaanu awood u leeyahay qalabka aanu haysanaa kaadhka aanu doonno aanu kansal garayn karto oo aan gebigoodaba lagu codayn karaynin marka goobta la yimaado waxaanu kaloo samayn karaa kaadhar kaleeto oo qofkaasi uu qofkii wax ku noqda ama si kaleeto ay wax u dhaafeen uu ku codayn karo ayaanu samaynaynaa wixii xalaala wixii xaaraanayna halkaasay ku dhammaanayaan laakiin siciid adigoo raalliya commissioner siciid guddida doorashooyinku marka laga hadlayo ololihii haddii xisbiyadii hoggaansami laayihiin xogaha annagu aanu hayno eanu xafiis ahaan hayno eanu home cable hayno
waxaa jira xisbiyo isku diyaariyey oo kaadhadhkiina iibsadaan isku diyaariyo badheedha oo dadweynihiina ka urursadaan badheedha oo dhallinyaradii ka urursadaan badheedha oo xoogahoogu ay yaalaan sidaad aduba u sheegtay inaad xoogaha aad maqasheen maxaa tallaabo ka qaadi karaysaan haddiiba ololahoodii aad xakamayn kari laadiin inay qof kaadhkuula yimid oo iibsadayna tallaabo laga qaadi karay waaba kuu sheegay tallaabooyinkaanu qaadayno qaarku waanu kuu sheegnay si aanu u kansal garayn karro kaadharhkii laakiin waxa weeyaan kaadharhku dadka qofku waxaa baa la yidhi qof walba oo kaadhkaaga qaado qofku kaadhka iska qaadan maayo waa la soo jeeg garaynayaa kaadhkii magaciisaa la weydiinayaa liisku ku jiraa la weydiinayaa telefoonkiisaa la weydiinayaa suulkaa laga saarayaa markaasi ayaa qofka marka la soo xaqiijiyo inuu qofkii yahay waxaanu qabannay dad ciidda iyo carradaa ka badan oo kaadh warqad ayan lahayn sita ama magac ayan lahayn sheeganaya waanu qabannay siyaabaan aanu ku qabannaa magaca hooyadiisaanu weydiinay waxyaabo kaletaanu weydiinay markaasay qaar iska khalkhalaan waaba garan kartaaba goobta markay yimaadaan qaar baa iska gariiraya ha aniga magaca hebel baa la yidhahdaa halkaasaad ba kasii garan karaysaa qofku inaan wax halaalo ul doonaya ugusan ayan ahayn laakiin annagu xisbiyo urursaday ma ogin dad la yidhi dad baa u ururiya waanu maqalnay oo laleeyahay hadhowtaa dad ama meel fog jira ama waxyaabo kaleto ku dhaceen oo dad la yidhi dad baa ururiyay laakiin annagu waxaanu caddayn karro oo aanu xaqiijin karto kuwaasina ma aha way su'aalaha way waqti su'aala jawaabahan waynu kooban si aynu fursad u siino dhallinyaradana su-aasha mukhtaar bay soo gelaysaa horta su-aashan maxayde uu siciidna ka jawaabayay mukhtaaroo kaadhkaagii miyaad haysataa goobtee kuugu qoran waxa weeyaan kaadh kasta waxa ku qoran goob number iyo goob magac namekii iyo numberkii baa ku qoran qofaan goobtaa ku qornayn kaadh hadduu la tago waa xadhig lalama tegi karo haddii la urursaday iyo haddii 10 aad haysato markaad soo gasho meesha waxa ku yaala hadday 10 qof goobtaa iska diiwaan geliyeen 10kii qof magacyadoodii oo keliya ku yaala magac kale ma iman karo kaadh la urursaday ma iman karo isla markaa goobtaa waa taqaanaa adigu aad iska diiwaan gelaysay magacaagina halkaas u yaala 11 qof ma noqon karto 10 wuu ka yaraan karaa laakiin 11 nooma qorna 10 baa halkaa ku qoran 10kaasun baa yaala sharciyan wixii ka duwan ee lala yimaado waa sharci darro waana ganaax iyo xadhig ayaa la isugu daraya kolay su'aalaha qaar baan ka jawaabi doonaa taa haddii aan weliba sii xoojiyo waxa weeyaan haddiiba ay dhacdo qofku inuu kaadh si kale u helay oo is yidhaahdo goobtan ka code oo xitaa goobta kaadhka uu ku qorayay uu tago waxaa la isku eegayaa wejigiisa iyo magaca meesha ku qoran una suurtogeli mayso inuu ka codeeyo marka taasaan kusii xoojinaya liiska mukhtaar haa liiska la dhigayaa waa isku mid u su'aalahaas horena waan u sheegay liiska ayaa la dhigayaa magacaagaa la dhigayaa magacaaga laga eegayaa kaadhkaaga iyo ID numberkaaga la isku eegayaa kabacdina sasaad ku codeynaysa waay su'aasha xaajigan raacinaya halkaas jawaabtaasi waxa weeyaan horta aad iyo aad bay muhiim u tahay waxa weeye qofku inuu ogaado xag u ka codeynaya waxaa jirtay ayaamihii diiwaangelinta 14 maalmood ee dambe waxaa jiri jirtay inuu qofku dooranayo meel kale inuu ka codeeyo halkuu iska diiwaan geliyo maahe adigoo imika jooga koodbuur baad odhanaysaa waxaan ka codeynayaa xaafadda axmed dhagax taasi aad bay muhiim u tahay ama goob kale aad dooranaysaa si markaa dadku aanay ugu mashquulin waxaa laga yaabaa qofku inuu tago maalintaa goobtii uu ka qaatay kaadhka oo is yidhaahdo goobtii aad kaadhka ka qaadatay baad ka codeynaysaa laakiin ay ka duwan tahay waxaad ka codeynaysaa goobta kuugu qoran kaadhkaaga xaggiisa dambe maaha goobtii aad iska diiwaan gelisay laakiin waxaad tegaysaa goobta kuugu qoran kaadhka xaggiisa dambe qof waliba ha akhriyo goobta ugu qoran kaadhkiisa xaggiisa dambe halkaasaad ka codeyn doontaa insha allah malaha maaha inaan ka jawaabo su-aashu meelun bay ku socotay laakiin waxaan ku darayaa waxaa laga yaabaa goobaha laga codeynaya inay ka badnaadaan goobihii diiwaangelinta marka waxaa laga yaabaa goobtii codbixinta in la kala jejebiyey oo dhowr qaybood 3 qaybood ama 2 qaybood laga dhigay marka taa ku dheeda waa inaad maanka ku haysaan
aad soran uun goobtii aad tegin laakiin goobta kugu qoran oo laga yaabo inayan ka dheerayn halkii aad iska diiwaan gelisay su-aasha kale farxiya su-aalihiiba qaar baanay ka jawaabin fadxiya su-aasheedu waxay ahayd dadkii abaaraha ama guurguuray ee seegay inay isdiiwaan geliyaan ma la siinayaa xaq buu leeyahay waa iyo qofka xanuunsaday ama qofka ka maqanba ama ka maqnaa diiwaangelintii qof kasta oo aan isdiiwaan gelin doorkan xaq uma lahaa inuu codeeyo waayo dee umamanu samayn kaadhkii kuma jiro diiwaanka aanu soo saarnay ee 873,000 ka sarreeya maadaama aanu ku jirin jaaniska wuu dhaafay waana sistamka ama maamulka aynu ku ilaalinaynay inay dadku dabadaa furan noqoto oo iska codeeyaan dadku iska galaan ama lagu xanibayay qofku jaanis baa la siiyey jaaniskii markanka muu faa'iidaysan laakiin insha allah biidmillaahi kariim waxaa laga yaabaa jaaniska dambe marka baarlamaanka ama golaha deegaanka inuu ka faa'iidaysto gudoomiye su-aasha inanta lafteeda marka qof 3 sannadood baad shaqadan wadeen ugu yaraan qofkii 3 sannadood 14 jirka maanta waa 17 jir waxaa laga yaabaa inuu xuquuq u yeeshay doorashadii oo taagan inuu codeeyo shalay markii la qaadanayna aanu kaadhka qaadan karin inuu waqtigiisa uu ka yaraa sida adduunyada dhacdana 6 bilood baa qofku 6 bilood ayaa qofku diiwaangelinta la sameeyaa 6 bilood gudahood buu ka codeeyaa inta badan adduunyada marka miyaanay dad badan oo dhalinyaro xuquuqdooda aad lumiseen aanay jiraynin iyadoo la heli karayo maadaama system adag keenteen in systemkii adkaa uu qofku mari karayo markuu daadiisii uu gaadho horta marka nidaam la sameeyaba dee nidaamkaasu faa'iidana wuu leeyahay khasaarana wuu leeyahay ilaahuunbaa dhammaystiran waxaan bini aadamku sameeyaa ma dhammaystirnaa markii aynu diiwaangelinta galaynay waxay 26 January 2016 markaa qofka imanayay wuxuu ahaa qofka noqon doona maalinta codaynta 16 jir marka 14 jirka waa la diiwaan gelinayay 14 jir iyo nus waa la diiwaan gelinayay waliba goboladu way kala dambeeyeen oo gobolkii ugu dambeeyay oo kale ilmuhu wuxuu noqonayay inuu ka sii sareeyo waxaa nasiib wanaaga diiwaankeenu helay diiwaan idiin jiraya weeyaan diiwaankaasu doorasho kasta waxaanu xeerka ku soo darnay 20 lagu maamulo doorashooyinka in la furo 6 bilood ka hor oo qofkii markii hore aanu jaanis u helin inuu isdiiwaan geliyo ama qofka da'dii codaynta soo gaadhay inuu isdiiwaan geliyo ayaanu jaaniska u siinaynaa 6 bilood ka hor doorasho kasta dub baa loo furayaa diiwaanka seerfarka dub baa loo furayaa halkaasaa diiwaangelin cusub laga gelaya haddii aanu isniraahno dee sii wada oo diiwaangelintuna ha socoto oo kaadh qaadashadu ha socoto dee siday kuwaas u socdaan doorashaba gaari mayno maba gaari karo waayo intaa waxaynu ka shaqaynaynaa ama qofka diiwaan geli ama kaadh u samey marka waqtigaaba dee intaa ku dhammaanaya su-aashaadii baa hadhan mafle waxa weeyaan horta maxay tahay sharciye dastuur iyo qaanuun baynu ku kala soconnaa dadku haddaanay qaanuunka iyo ixtiraamin sharciga dad ma noqonayaan way dhaci kartaa inuu qofku gafo laakiin gafkii waa in la soo saaraa qodobkii qabanayay waanu soo saarnay ganaaxii waanu soo saarnay waa in ganaaxun loo badiyaa oo lagu sii adkeeyaa laakiin hadda waxaanu mar hore sheegnay inaanu xeerkii anshaxa ee doorashada hadda soo saarayno iyaga gamcahooda hadda uu ku jiro marka gamcahooday hadda isku xidhayaan isku dilayaan marka waynu adkaynaynaa laakiin markaynu annagu sharci soo saarno annagu dee booliiskii ma nihin markaanu sharcigii soo saarno waa inaanu helnaa hay-addii fulinaysay in sharcigaa lagu dhaqo marka taana waanu ka wada hadalnay ciidanka qaranka waanu ka wada hadalnay waa la fulinayaa gaadiidka dowladda lagu ololayn kari maayo agaasimo guud iyo shaqaale wixii ka hooseeya lama ogola TV-ga qaranka raadiyo hargeysa iyo joornaalka dawan waa loo simayey markaanu hadda samayno ay saxeexaan waxaa furmaysa in xeerkaa lagu dhaqo hadday xukuumadda tahay hadday shaqaalaha dowladda tahay hadday shidaalka iyo hantida qaranka tahay midna lama ogola su-aalahan idinku soo celin waaye fadlan adoo mahadsan magacaaga su-aashaada soo koob بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa cabdikariin axmed allaale komishanka doorashooyinka waxa la shaqeeya hay-ado
iyo ama xukuumadda ha ka mid noqdeen ama hay-ada madax bannaan ha noqdeen sonsaf baa ka mid ah abd-gaa ka mid ah bilayskaa ka mid ah garsoorkaa ka mid ah xisbiyada qaarkoodna waxa waxa midna kuma kalsoonin markaas saamayn intee lag bay shaqadiina ku yeelanaysaa dhammaan bilayskii garsoorkii sonsaf abd wixiiba haddii dee laga soo cawdo idinka shaqadiina saamayn intee lag ba ku yeelanaysaa ma shaqayn kartaan la-aanteed aad baad mahadsantay aad baad mahadsantay xaggan keen waa ninka mahadsanyahay بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحلال عبد الرحمن هذا تربي عبد الرحمن بغدادي وكسر جامعة بدر انترناشونال يونيفرسيتي سؤال ويديني كوميشن كدورشين كغرك وحويه ان سوماليا لبا دورشو هore ay gashay guddi commission baa ka shaqeynayay ma naan arkin kalsooni darrada idinka la idinka muujinayo inay kuwii hore ay lahaayeen idinka maxaa taa sababay waad mahadsantay waa dhexdan siin doonayso ma xagga waan siiyey dhexdan idin siinaya insha allah qof baan ka siinay way ninkaasaan siin doonaa dhexda waan idin siinaya waan idinku soo noqon xagga hore dhexda waan idin yar qaybinaya in yar aan isku samirno magacaaga su-aashaada bis سعيد عبد الجامع baa la yiraahdaa salaan kadib commissionka waan salaamaya waxaan weydiin lahaa commissionka guddida mustambeedka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ballan qaaday inuu sameyn doono xeerka doorashooyinka halkay kaga jiraan mise waa guddi leedu ku wafaynayo oo idinka shaki leedka qaba su'aashaas waad mahadsantay inanta u dambaysan siinaya magacaygu waa Idil Xasan Cali su'aashaydu waxay tahay doorashada aqwad ma ka iman kartaa mudaharaad saddexda xusbi qaran mudaharaad ma ka iman karaa saddexda xisbi qaran doorashada marka lagu jiro waad mahadsantay waad mahadsantay inanta dambana sii siciid magacaygu waa Hibaaq Dayb Nuux waxaan ka socdaa organization Kasanam organization su'aashaydu waxay noqon doontaa dadkii maxay tahay warqadaha qaatay ee ID-yada inay qaataan ay ahayd waqtigii ka dhacay ID-goodina uu meesha yaalo iyaguna doonayaan inay codeeyaan caqabadaas sidee loo daweynayaa waad mahadsantay magacaygu waa Hoode Maxamuud ka socota New Generation waxaan weydiin lahaa munaaqibiinta wax kale xisbiyada soo doorta oo keensada munaaqibiinta xisbiyadu keensanayaan maadaama iyagu xor u yihiin cidda keensanayaan ajaanib ma noqon karaan aad bay mahadsantay xagga dambaan siinaa inanka taagan siin su-aashaan jecelahay inaan weydiiyo guddiga doorashooyinka qaranka neek waxa weeye toddobada xubnood oo keliya maaha dadka inta badan bulshadu ay hadal hayso daacadnimadooda laakiin waxaa jira shaqaale commissionku leeyahay oo kuwa xarunta jooga kuwa ka shaqayn doona goobaha doorashadu ka dhacayso kuwaas oo khaladaad badan ka yimid tusaale ahaan markii diiwaangelintu socotay waxay sameeyeen inay under age diiwaangeliyaan hadda markii kaadhka la bixinayay qofkii aan jooginba deegaankii ayay kaadhkii siiyeen kuwa shaqaalaha jooga commissionka ee ka shaqaynaya wixiina uu yahay electronic inta badan computer la gelinayo kuwa yaa damaanad qaadaya inay samayn karaan khalad gelin karaan wixii computerkii inay si kale u isticmaali karaan iyagoo eegaya danta musharaxa ama xisbiga ay taageersan yihiin waad mahadsantay gudoomiye way noo soo koobi si aan iyagana ugu celino waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo su-aasha cabdikariin ee ka hadlaysay in xisbiyada ama xisbiyada qaar ay dadafeeyeen ama ay eed ka qoreen ilaa maxkamadda sare waxaan kuu sheegaya horta komishanka doorashooyinka qaranku isagaa xor u ah cidda uu la shaqaynayo hadday yihiin hay-ado maxalliya hadday yihiin observerska la keenayo internationalka ah ee goobjoogayaasha caalamiga ah noqon doona iyo cid kasta oo ay isleeyihiin doorashada ayay hawlid kala qabanayaan hawshan awoodda ugu sarreysa waxa iskale komishanka doorashooyinka qaranka waanad ogtihiin oo komishanka doorashooyinka qaranku weli meeluu cid kalsoonidii kagala noqday ma jirto doorashaba weli maynaan gaadhin kalsooni komishanka doorashooyinka qaranka ay kaga noqdaan dee dadkii la shaqaynayay ilaa heer maxkamada marka taa waxaan filayaa su-aashaasi malaa waxay ku habboonayd dee ciddii ay kasoo baxday in la weydiiyo laakiin su-aashaasi ma aha su-aal komishanka doorashooyinka idinka maxaa caqabada idinku tahay kala noqoshada lagala noqday shaqada ila idinka idinla hayaan ururada qaar ka midi oo maxkamadoo kale waxay ka mid tahay dadka joogaya goobta laga codeynayo qof bay ku leedahay daakhligoo kale arrimaha guud qof buu ku leeyahay sonsaafoo kale xeerkiiba idinla diyaarinaysa anshaxa akaademiyadoo kale waxay idinla sameyn muraaqibiintii bay tababaraysaa dadkii idinla shaqaynayay bay qayb ka yihiin dadkaasi marka maxay saameyn idinka idinku leedahay buu cabdikariin ku weydiiyey saameyntu waxa weeyaan way noqon kartaa saameyn laakiin wax walba waxa ka horeeya wada hadal baa ka horeeya shakigu wuu iman karaa xisbigu wuu shakiyi karaa dad buu ka shakiyi karaa hay-ado shaqaynayo ka shakiyi karaa laakiin waxaa looga baahan yahay
hay-adaha hawsha gacanta ku haya ee xisbigaasi uu ka shakeeyey dee inay iscaddeeyaan iyagu oo ay caddeeyaan dhexdhexaadnimadooda annagu waxa weeyaan iminka tusaale haddii aan soo qaato sonsaf oo kale soo qaatay sonsaf waxay keentaa waa observerska ama goobjoogayaasha maxalliga ah hay-ado caalamiga kala shaqeeyaan hay-adaha soo siiya kontaraaga ma aha inuu komishanka doorashooyinka qaranku uu siinayo kontaraaga laakiin mar walba komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu awoodda saaraa dadka ay la shaqeynayaan in ay noqdaan dad dhexdhexaad ah oo doorashada dhexdhexaadka ah cid kastoo ay la shaqeynayaan waa inay dhexdhexaad noqoto waa inay xisbiyada dhexdhexaad u noqdaan waa inay daacad ka noqdaan waa in la ogyahay intaasoo dhan taa haddii uu mugdi galo waxaa loo baahan yahay markaa in la caddeeyo wixii caddaan unbaa lagu shaqeynaya waad mahadsantahay su-aasha laba su-aalood baan anigu isku xidhayaa ta cabdirasaaq maxayday tarabi ee ahayd kalsoonida iyo ta maxayday siciid cabdi ee ahayd mustambeedka tarabi waxaa kalsoonida lagala noqdaa ama shaki laga qabaa markuu hay-adii ay ku khasaarto ama ku feelgarowdo shaqo ay haysay annagu waxaanu qabnaa shaqooyinkii aanu soo qabannay ee culayska ahaa ee labadii sannadood ee ugu dambeeyey aanu haynay inaananu midna ku feelgaroobin mid kasta sideeda uga baxnay marka kalsooni darro waxay iman lahayd haddaanu ku dhici lahayn manay dhicin kalsooni darro waxay timaadaa 3 xisbi baanu la shaqeynaa hadday 3 xisbi halkaa intaysa soo taagaan ay odhan lahaayeen annagu kalsooni kuma qabno komishankii ma gelayno doorashada weli kama hayna iyagana kalsooni darro waxay timaadaa marka xukuumadda aanu iyadana la shaqeynaa aysa soo taagto oo ay tidhaahdo awooduma laha inay qabtaan komishankanu doorasho inaga saaraan iyadana kama hayno waxaan ammaan ahayn mooyaane ta kale mustambeedka xeerka meelna kagama jirto mustambeed waa sida garsoorahoo kale garsooraha ma loo samayn karaa garsooro kaloo dul fadhiya oo u yeedhiya wuxuu odhan lahaa waa maya marka garsoor baanu nahay annagu garsoorkana mustambeed ama garsoor looma samayn karo xeerkuna ma ogola su-aasha shaqaalaha uuna weydiiyey cabdishakuur waxaan idiin sheegayaa shaqaaluhu inta badan waxay u badan yihiin waa ardayda jaamacadaha 6 jaamacadood oo kuwa publica ah ee ku kala yaala 6 gobol ayaanu ardayda ka qorannaa oo ka qaadanaa ardaydaasi waa markii diiwaangelinta waxaanu qaadanaynay kuwa u badnaa waxay ahaayeen xagga IT-ga waayo farsamada lagu shaqeynayo qof IT u baahan ardayda IT-ga ku takhasusayaan ka qaadanaynay laakiin tii dambe hadda kaar qaybintu IT waxba kuma xidhnayn waa arkaayo halka arday badan baaba joogtaan kuwii nala shaqeynaya iga muuqdaan wajiyadoodu marka waxa weeye 6 jaamacadood oo jaamacadda Hargeysa ugu weyn tahay jaamacadda Camuud dugsiga badda isaguna ku yaala Berbera jaamacadda maxay tahay iyaduna Burco University Nugaal oo ku taala Lascaanood iyo Sanaag oo iyaduna ku taala magaalada Ceergaabo inta 6 jaamacadood oo public ah baan uga qaadanaa liiska ardaydana waxaa ka mas'uula jaamacadda ardaygii sameeyay wax qalad ah oo la yimaada qaladkaasi jaamacadda la xisaabtanta waxaa lagu la xisaabtamaa shahaadadiisa iyo wixii kaleeto ee ka yaala jaamacadda ayaa saameyn weyn ee ku yeelanaysa qaladaad kaleeto oo dembi ah haddii ay galaan oo ay iyaduna timaadoba waxaan maleeyaa su-aasha xagga koonahaas inka odayga fadhiya magaciisii wuxuu ahaa hadday la yimaadaan taa qudheedna dembiyo ayaa meesha iman kara dembigana dee waa haddii lagu caddeeyo baaritaan baa jira oo la sameeyo baaritaanka annagu ma samayno waanu soo ogaanaa laakiin baaritaanka waxaan u diraa cidda ay khusayso kuwaasaa soo baadha marka ay baadhaan ay wixii ku caddaadaan iyo in annagu aanu samaynaba waxaa markaasi ay dhacdaa qofkaasi ama ardaydaasi inay sharcigii ka tallaabsadeen wixii loo diray waxaan ahay inay sameeyeen waa la xidhaa waad maqasheen gobollo badan baanu ku xidhnay arday oo la soo qabtay qaar baa ilaa imika damiin ku jooga qaar waa xidhan yihiin ilaa imikadaasi dad kaloo ka mas'uuliyiin oo ka waaweyn baa la xidhay oo iyagana aad ogtihiin oo dembiyada galay marka hawshu ma yara shaqaaluhu laakiin ardayda jaamacadaha ayaa noo soo xula bismillaahi raxmaan raxiim su-aasha idil xasan iyo aan israaciyo roode maxamuud su-aasha idil waxa weeyaan maalinta doorashada mudaharaad hadday abaabulaan xisbiyadu maalinta 11aad
iyo maalinta 12aad insha allah ee November lama ogola dhaqdhaqaaq gaadiid iyo isu imaansho la xidhaya ma ololana lama ogola ogololu wuxuu istaagayaa 2 maalmood ka hor 24 saacadood 48 saacadood ka hor buu istaagayaa maalinta doorashada ka hor isu imaansho iyo dhaqdhaqaaq lama ogola maalinta doorashadana hadalkeeda badaa waxa la wareegaya maamulka wadanka waa komishanka doorashooyinka ayaa xukunka la wareegaya isaga na ma ogola wax isu imanaya iyo wax dhaqdhaqaaq iyo wax mudaaraad ah muraaqib loo ogolaya ajnabi haddii aad eegto xeerka maxay tahay 730 ee xeerka diiwaangelinta lama ogola illa diiwaangeliyo qof ajnabi ah lama ogola qof ajnabi inuu doorashadeena ka qayb galo iska daayo inuu muraaqib inoo noqdo aad buu mahadsantahay gudoomiye su-aashii ugu dambeysay oo ahayd shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka oo mararka qaar khaladaad sameeya waxa weeyaan markaad eegto shaqaalihii kasoo shaqeynaya ardayda ahaa waxaynu odhan karnaa waa tiro yar tirada ku dhaqmi weyday shuruucdii iyo waxyaabihii ay ku dhaarteen meelaha qaar way ka dhacday in qof iyo laba ay si qaldan u bixiyeen haddii ay bixiyeen laakiin waad ogtihiinoo waa la soo xidhay dadka qaar ilaa hadda way xidhan yihiin taasi wax weyn sharcigaa la marinayaa haddii musuqmaasuqu wadda iminkaba soo dhacayo culayskaasi uu jiro ama dad la xidhay ama farsamo ama waxyaabahaasi ay dhaceen oo shaqaalihii komishanka ay ka dhaceen miyaan la odhan karin waxaa heshiin kara goobta muraaqibiinta xisbiyada marka lacag la qaato waa taqaanaa dhaqanka waddanka waa taqaanaa fahankiisa waa taqaanaa baahida dadka inay yar oo shaqaalaha oo baahi qaba xisbi walba in lacag la kala qaato goobta natiijada la bedelo miyaanay dhici karin laakiin waxa weeye iligu muxuu qofku samayn karaa inanku muxuu samayn karaa waxa weeye liis iyo qofkii la yimaada kaadhkiisa weeye kaadhar siyaada oo qofka meesha jooga uu hayo oo sidii berigii hore waraaqaha lagu buuxin karayaa ma jirto hadhow marka la xisaabtamayana liiskii iyo kaadhkii lagu codeeyey baa lagu xisaabtamaya wax kale lagu xisaabtami maayo marka si uu qofku qalad u samayn karaa waa waxyaabaha systemkan iyo nidaamkan aanu keennay uu ku shaqaynayo aad iyo aad baa looga taxadiray horta waxaan u mahadnaqayaa ardayda jaamacadaha ee goobaha ka shaqaynayay waxaan odhan karaa 99% in ka badan waa arday daacad ah waa arday wixii loo dhiibay sidoodii uga soo baxay marka ma odhan karna ardaydaas ama shilin yar baa lagu iibsan karaa ama si dhib yar bay u musuqmaasuqi karaan waa qof baa laga yaabaa qofkaasna sharcigaa la marinaya way su'aalo bal magacaygu waa cabdirashiid qaalib ciise ka socda jaamacadda beder ee caalamiga su-aashan idin weydiinaya waxaa weeye gobolka soole markii diiwaangelinta la bixinayay uu ugu dambeeyey isla markaana kamuu shaqaynayn wifi ama wireless kamuu shaqaynayn systemkan casriga ah ee isha buudaa keenteenna dee wireless buu ku shaqaynayay markaa sidee baa u hubinaysaan inay qofkaasi duplicate noqdo ama dadkaasi dhowr jeer goobihii ay ka galeen sidee bay idinku kala caddaanaysaa bismillahi raxmaani raxiim magacay waa saacad dabaare su-aasha idin gudagelaya komishanka doorashooyinka qaranku sidaynu ka warqabno dhowaan xisbiyada qaranka qaar ka mid a welibana xisbiga kulmiye waxa uu galbeedka ka sameeyey olole waxaa loo baneeyey calaamad khayriyadii kale tusaale ahaan meeshii lagu talagalay olole in lagu qabto hargeysana dad badan baa laga reeyo la geniyey meesha komishanka doorashooyinku wax tallaabo sharciga oo ay ka qaadeen walaalaan ma jiro taama loo odhan karaa kalsoonidii dalka ay ku qabeen ayay waaqici kartaa aad baad mahadsantay magacaygu waa ismaaciil axmed waad mahadsantay malaa si fiican lama maqlaayo su-aashaydu waxay tahay ma jirto iminka ma muuqato haddiiba se ay dhacdo in uu xisbiyada ka midii uu komishaneerkiisa kala baxo komishaneerada doorashadii ma dhacaysa haddiiba ay se dhacdo inuu xisbi qaadaco kalsoonida komishaneerada doorashadii ma dhacaysa haddiiba se ay dhacdo in maxay ahayday su-aashaydu waxay tahay sax goormuu xisbigu xaq u leeyahay in uu daadifeeyo komishaneerada waa sax aad baad mahadsantay daada question waa in laba xisbi ma ku geli karnaa doorashada haddiiba ay dhacdo inuu xisbi qaadaco waad mahadsantay yani way fahmeen baan filaya magacaygu waxa weeyaan cabdiqaadir maxamed ibraahim
waxaa jirtaa iminka hadalladaad ku hadlaysay badankood waxaad moodaa inay qaarkood iska hor imanayeen barlowed waxaad sheegteen in serfarka online lagu isticmaalayo oo doorashada markay dhammaato la helayo xisbiyada ogaanayaan marna waxaad sheegteen in aanu serfarku shaqaynin aan online ahayn marka wixii wax lagu ogaan karaa markuu online yahay hore waxaad u sheegteen mar aad soo xirayseen kaarbixinta in ururada qaar ka mid ah ay siyaasadda ku milmeen iminkana waxaad sheegteen ilaa iminka inaanay jirin ururo maxalli ah oo aad kala noqoteen kalsoonida marka sidee laydinku aamini karaa idinkoo ururo aan siyaasadda ku dhex milmay la shaqaynaya wasalaamu calaykum aad baad mahadsan intaasin weydiin waynu ku noqon markaan yar su-aasha ismaaciil waxa weeyaan horena umay dhicin xeerka iyagana kuma jirto innaka somalilandna waxaynu had iyo goor compromise baynu ku shaqaynaa isu soo jiid iyo is-ixtiraam iyo isu dulqaadasho ayaynu 25 sannadood kusoo meel gaadhnay sidaa daraaddeed marka hadduu xisbi uu arko inuu xubintiisii la baxo kolley waxaa lagala tashan doonaa uun xisbiyada kale iyo commissionku inay ka wada fadhiistaan iska arkaan laakiin biidmillaahi kariim ma filayno siday hadda u socoto inay dhacdo arrintaaso ama inoo timaado hadduu xisbi uu ku hanjabo inuu doorashada ka baxayana waa sidaasi leeg hore inoogumay dhicin iminkana uma eka inay dhacayso haddayse timaado waa compromisekii iyo isku tashigii iyo is-ixtiraamkii iyo isu imaanshihii iyo isqancintii ma filayno siday u socoto hawadu tahay inay wax caqabada ama turunturi inaga hor timaado sidaasaynu gamcaha isku qabsanaynaa doorashada insha allah bismillaahi kariim ku wada geli doonaa insha allah waxaan filayaa serfarka cabdiqaadir muwaadinkaasi aad baan u fahmin aan qeexo waxa weeyaan horta serfarka waxaa loogu talagalay in lagu galo diiwaangelintii diiwaangelintii shaqadeedii way dhammaatay shaqadii serfarku halkaasay ku xidhantay ma jirto codbixiyayaal codkooda si toos ugu soo dhici doona serfarka haba yaraatay shaqadiisii way xidhantay halkaasay ku dhammaatay ta keliya ee markii aan sheegayni waxa weeyaan codadka degmooyinka in annaga si toos ah na loogu soo diro si online ah taasay ahayd taa intaasay kaga jawaabaya dhinaca ururada annaga ururo badan baanu la shaqaynaa haddii ay tahay wacyigelinta iyo haddii ay tahay dhinacyo kaleba ururadaa hore ayaanu annagu eegnay dhexdhexaadnimadooda wixii annagu aanu aragnay inaanay dhexdhexaad ahayna mar hore abaanu iska saarnay marka annagu kuwa aanu la shaqaynaa aanu wada shaqaynta leenahay waa ururo aan u aragno inay dhexdhexaad yihiin wixii ay soo baxday inaanay dhexdhexaad ahayna hore aanu u sheegnay waxaan doorashada dhexdhexaad ka ahayn oo aan cadaalad ku shaqaynayn inaanu commissionku la shaqaynayn gobolka sool waxaa yidhi cabdirashiid gobolka goobaha markaanu geyno kitkii ama maxayde combyuutarkii iyo scanarkii iyo bu'da kii sawirayey waxaa la sameynayey mini server laptop la yidhaahdo oo server yara kaasaa qabanayey on the spot duplicate-ka qofka sameeyey habeennimadaana waa laga soo qaadayey external maxayde hard disk baa lagu soo qaadayey waxa la imanayey goobta online-ka ah isla markaaba wuu soo gudbinayey muu dhaxayn ama subaxnimada lagumuu gaadhayn marka qofku mar kastaba ama online meeshiisu ha ahaato ama yaanay ahaanin serverka localka ah ayaa qabanayey oo celinayey isla markaana u soo gudbinayey isla habeennimada markay goobtu xidhanto serverka weyn ee hargeysa yaala aad buu mahadsan yahay gudoomiyuhu cabdiqaadir xuseen imaan kaltuun sheekh xasan siciid cali muuse iyo dadweynaha ka qayb galay barnaamijka waa barnaamijkeeni qanci dadkaaga barnaamijyo kale aynu iskugu iman doonaa haddii allah u diraa iyo dooda mas-uuliyiinta qaranka ee uu soo jeedinayey inankii iminka goobta isaguna ka hadlay doodo badan baynu iskugu iman doonaa oo toosa oo la ishor fadhiisan doono oo xisbiyada iyo dhinac walba iyo commissionka iyo bulshadaba barnaamijkeena qanci dadkaaga aad bay u mahadsiin bahda farsamada on cable t v waanan u mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta halka soo qabnay tan iyo kulanti dambe haddii allah u diraa nabadgelyo